halkan waa xarunta diyaarinta raashinka qalalan oo loogu talagalay ciidamada difaaca deegaanka ee ku jira furmaha hore ee dagaalka degmada Ruumingood iyo deegaanada hoostaga kuwaas oo dagaal adag kula jira qawaarijta al-shabaab ay ku soo duushay ololahan oo horkacayaan dhalinyarada ka soo jeeda gobolka Shabeellaha Dhexe gaar ahaan degmada Ruumingood iyo deegaanada hoostaga waxaana ay sheegeen in ku rabtaagayaan ciidamada difaaca deegaanka guuleystaa idin leenahay cadowgiina la qabto aninkana insha Allah mar dhow tuutan soo gashayna saadan kugu maayna furunta waa la yiraahdo marka ha ka cabsanina cadow ha u baqnina geeridu waa loo dhashaa geeridu mar bay nolosha dhaantay leeri marka guuleystaa idin leenahay aninkana waa idin soo gaarsiina cuntada qalalan inkastoo la soo daahnay hala naga ahaada idin leenahay guuleystana cadowgana iska qabta dad badan joogo oo idin ku hergelay haddana idin ku hergelay insha Allah marka guuleystaa idin leenahay waa idin imaanayna mar dhow hadoo la yiraahdo waan idin soo gaarayna waxaana balama inta cadow ku jira juqda inaan inta nimaan idin kala bixino oo biyo idin ka daba qaadna hadaan nabadna hadaan gabdhayna nahno wiilashana waxaa laga rabaa ay kuwa furunta joog wayba jiraan kuwa magaala ku jiro inay tuuta xirtaan hubka qaataan ee cadawga dalka baxshaan hadda xamar ku harsan ninka jijiifna cadawga dalka inay haysto wax ma noo gashaa ninka bismillaahir rahmaanir rahiim magacaygu waa Xaawi Cismaan Sibriye maanta waxaan diyaarinaynaa cunadii qalalneed ee aan ugu talagalnay ciidankeena macaawisleyda ee deegaanka Ruumingood ilaa iyo inta u dhaxlay adaan lixay geeshkeena waan garab taaganahay insha Allah waan u sameey doonaa ayaga daftoodan jikada ugu jirnaa garabkooda taaganahay insha Allah waxa waa inuu si dhaqso ku gaari doona rajeynayna mar walba iyo mar kastana insha Allah garabkoodan taaganahay waan garab taagnaan joognaa geeshkeena ciidankeena Soomaaliyeed iyo kuweena deegaankaba insha Allah ilaahay ha ku guuleeyo dagaalka ay cadawga kula jiraan haday ayaga ay garteen in ay deegaanadii xureeyaan ay hubka garabka surtaan annagana inkastoo aan wax yar la soo daahnay oo raali gelin aan ku dareeno waxaan la garab taaganahay inaan cunada qalalneed gaarsiino aan dhiirigelin la garab istaagno insha Allah taala ayna tagtay inaan furmaa ugu imaano raashinkan oo ka kooban noocyada sahayda qalalan ayay dhalinyaradan ku garab istaagayaan ciidamada difaaca deegaanka iyo kuwa xooga dalka qaar kamid ah dhalinyarada oo aan ku booqanay xaruntooda diyaarinta raashinkan ayaa ka kooban wiilal iyo gabdho waxaana ay nooga warameen doorkooda difaaca deegaanka iyo garab istaaga ciidamada qaranka iyo kuwa xooga dalka waxaan u mahadcelinaynaa gabdhaha walaalahayna sharafta badan ee ururka dhalinyarada daawada same ee isxilqaamay walaalahooda difaaca ku jira iyadoo tahay bil Ramadaan aan ognahay xaaladda culayska badan ay ku dagaalamayaan ay kula dagaalamayaan cadawga si ay uga xoreeyaan deegaanada degmada Ruumingood u diyaariyay cunto qalalan ay ku isticmaali doonaan furinta dagaalka si ay maaragtay dhiirigelin iyo garab istaag ay u noqoto haddii ay walaalahayna maanta hubka qaateen annaguna waxaan u diyaarsanahay haddii aynu dhalinyarada daawada same in aan gaarsiino wax alaale wax u baahan yihiin oo hiliho ah haddii ayagu naga xigsadeen cadawga iyo in dhigoor ay daadiyaan isku dareen annaguna waxaan diyaar u nahay in maaragtay maalkeena iyo qarashkeena iyo waqtigeena aan bixino si ay ayagu yacni ay u helaan dhiirigelin ugu horeyn waxaan u mahadcelinayaa gabdhaha walaalahayna ah ee diyaariyay cuntadan qalalan ay ugu talagaleen ciidamada Soomaaliyeed ee ku jira furimaha dagaalka khaasatan ciidamada macaawisleyda ah ee ka dagaalamaysa degmada Ruumingood waxaan leenahay walaalahayn gabdhaheena sharafta leh waa mahadsantihiin waxa waaye maalkooda iyo waqtigooda iyo qarashkooda isugu dareen waa maaragtay aad iyo aad in loogu mahadceliyo cuntadan qalalan ay ugu talagaleen ciidamada macaawisleyda degmada Ruumingood waxaan rajeynaynaa inay ku gaarto si dhaqsi ah inkastoo maaragtay aad iyo aad uga soo daahnay waxaan ka raali gelinaynaa walaalaha qiimaha badan ee furimaha dagaalka ku jira ee metelaayo inay maaragtay raali naga ahaadaan daahitaanka aan la soo daahnay insha Allah maanta hawsha aan meeshan u joognana waxay noqonaysaa bilaabay noqonaysaa dhamaad ma noqon doonto baragow hawsha idinka idin taagan tahay daawudka quwadii awooda lagu aqaan jiray haddana wali waa leeyihiin israaca tashta kulumadiina maalmahan waa badan yihiin qodobadii laga soo saaray kulumadii xigxigay inaan ku dhaqaaqno oo waxa loo ka rabaa deegaankii tagno ee dabajeexyada dhashiikiyaasha Kaaraan iyo Madiino ku baakiman oo ku jira guryaha laga soo saaro Madiino diyaariya dabajeexyada ayaa soo bixiya akiyaasha guryaha ku jira sabanada suugaga xareysan noo diyaariyo isbuucan gudihiisa reer Kaaraan oo idinkan sidaas oo kale soo bixiya hubka haysaan is diyaariya gabdhaha cunada qalalna waa diyaariyaan qaada
difaaca la taga inta kalena iyagana la garab taagan ragow soo baxa ka soo baxa guryaha hubka qaata dagaalka aan galno cadow wuu jabay waxaa lagu jiraa hal gandheer meel aan soo laabana nagama dambayso war deegaanka aan difaacano waa meesha kale iyo hon ku faani karno ku dhaara karno marka deegaankeena dibna ugu laabano baaqan diirayna wuxuu yahay in dhalinyarta istiyaariyaan eedu waa dhimanayne meesha lagu dhintana waxa uu qiimo badan oo jihaad ku jiro bishan Ramadaanka iyo handana deegaanadii soo baxa aan dagaalka galnay maxamed cabdiraxmaan yabrow agaasimaha siyaasadda iyo dimuqraadiyadda maamulka gobolka banaadir oo isaguna booqday xaruntan ayaa dhiirigeliyay in la garab istaago ciidamada deegaanka difaaca oo muddo badan dagaal adag kula jira qawaarijta al-shabaab ay ku soo duushay deegaamada Ruumangood iyo deegaanada hoostaga waxaan aad ugu faraxsanahay shaqada socoto maanta oo loogu diyaar garoowayo in ciidamada gurmadka ah oo magaalooyinka dhaadheer iyo dhibaatada ku jiro in loogu geeyo meeshooda si loo quudiyo cadawgana uu sii durko annaga waxaana haysta cadow aad u weyn oo muddo badanna haystay laakiin hadda waxaan taaganahay gunaanadkii iyo qiiradii ninkii dhiig laho kac ayaan ku jirnaa marka nin kastoo inuu dhaqaaqo ayaa loo baahan yahay waa u jeedaan gabdhaheena maanta waxay qabanayaan cabdiqaadir shacab warbaahinta qaranka muqdisho